uga amar qaadan mayno cidna inaanu ka shaqayno xaalka xukuumadduna waxaan leeyahay kuwa xukuumadda yidhi la taataaban maayo arrinkaa la qaban maayo war waa laga shaqaynayaa maxaabiista kuwaasina inay soo baxaan kuwa la soo baxa madaxweynaha iyo xukuumadduna iyadaa dadkan loo doortay aroorta hadday arkaan inay hawshaas sax tahay waanu uga dambaynaynaa waxaan kaloo leenahay maamulka gobolku sida uu uga shaqeeyey ee loo laayay dadka rasaasta nool loola dhacay ee loogu dhintay ee loogu dhaawacmay xukuumadda waanu kala xisaabtamaynaa waanuna u sheegnay laakiin waxaan leenahay dadkii xafiisyada dawladda jebiyey hantida dadka dhacay tuugtahay ee ku dhex dhuuntay dad iska cadhaysanoo caadifadii iyo warkii la geliyey ay cadhsantii ka hoos faa'iidaystay waktiga ay noqotay in wax laga qabtaa laga qaban doona waxaan halkan u soo fadhiistay inaan kaga hadlo shacbiga somalilan iyo xukuumadda iyo beelaha habar jeclo intaba inaan kala hadlo iyo beelaha somalilanba dhacdadii ka dhacday maanta burco ee mudaharaadka ahayd marka hore waxaan leeyahay inaa lilahi wa inaa ilaahi raajicuun ilaahay samir iyo iimaan hayna ka siiyo intii dadkii qaaliga ahaa ee labadii qof ayna kaga dhintay ilaahay samir iyo iimaan hayna ka siiyo dadkii ku dhaawacmayna ilaahay hawb oo iga dhayo aad iyo aad baan uga xumahay anigoo ku hadlay afka madax dhaqameedka beelaha habar jeclo iyo ka somalilanba waxaan jeclahay inaan si badheero ah iyo xaajadu halkay marayso iyo waxa laga sameeyey iyo shacbiga kicinta la kiciyey mid walba inaan halkan kaga hadlo marka hore waxa weeyaan masiibada maanta halkaa ka dhacday burco waad ogtihiin dad qaaliya ayaa ka xidhan somalilan reer khaatumana waxaa ka xidhan dad qaaliya innagana dad aynu garanayno tiradooda ka xidhan iyagana dad 120 aan ka yarayn baa halkan ku xidhan cidday ka xidhan tahayba dhibaata ayay ku haysaa anugu waxaan u ahaa isleeyahay waxaa tahay qofkii u badnaa ee sacyi sameeya oo dadkaa sidii xorriyad ay u heli lahaayeen ka shaqeeyey xukuumaddii hore intay joogtay iyadoo dagaalku socdo raggii dagaalka lagu qabtay iyo kuwa dhaawacay iyo kuwa bedqaba 12 xubnood ayaan soo gudbiyey anigu ay gala shaqeeyeen garaadadu iyo dadka reer laascaanood intaba waanu ka shaqaynay nabadgelyay qoysaskoodii ugu yimaadeen qaar ka mida dhaawacii way u dhinteen waxa weeyaan dadaalkaasi iyo arrinkaasi sacyi buu ku yimi cid wax nagu siinaysa ma jirteen maalin kama aan fadhiisan anigu madax dhaqameedka kale waan uga dadaal badnaa waan ka shaqaynaynay kuwa halkanna inay xorriyaddooda heleen baynu ka shaqaynaynay waxaan doonayaa dadka araa'id laa yaktubu calaa ahlihi ninka odayga ah ee hogaamiya dadkiisa been uma sheego caawa waxaan arkayey horta dadka si khaldan baa wax loogu sheegay waxaan doonayaa cid walba inaan u caddeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan cabdiraxmaan ciro waxaan xoogaal ka ahay oo ilaahay igu ogyahay inuu xil iska saaray dadka halkan ku xidhan iyo kuwa halkaa ku xidhnama inay xorriyaddooda helaan inay qoysaskoodii dib ula madeedaan inaanu wax kale saacad kale ka shaqaynayn waxaan kaloo aan u mahad celinayaa dad badan oo ka shaqeeyey inay kuwii hore xorriyaddooda helaan xataa qaar aynu aad wax uga tirsanayso dowladda federaal ka midi 25 qof waxay ka shaqaysay inay inoo yimaadaan oo nabadgelyo inay ku yimaadaan ilaa hadda cabdiraxmaan ciro intuu qabsaday 41 qof ayaa inoo yimi oo dadkii xidhnaa ah waxaan leeyahay madaxweynuhu wuxuu ka shaqaynayaa dadkaasi inay xorriyaddooda helaan arrimaha qaarkood marka laga shaqaynayo waxaan arkayay dad leh muxuu madaxweynuhu dadka ula warrami waayey maxaa dadka loola warrami waayey waxaan qabaa dadka noocaa oo fekeraya waxay ka shaqaynayaan inaan raggaa xaggooda loo dhaqaaqin oo sacyi loo gelin si ay u xidhnaadaan dawladdana ay lugaa ka xidhaan ciddii kale ee sacyi ka shaqaynaysana ay ka shaqeeyaan arrinkaa waxaan arkayay qaar dawladda ka mid oo caawa hadlayoo leh maxaabiis la gudbinayaa ma jirto waar kuwii hore annagaa qaadnay
anigaygana ahaa ninkii qaaday inay kuwaasi soo baxaan halkaa joogaa kuwa halkan joogaa halkan ku xidhnaa baxaan baan uga shaqaynayna waxaa jirta madaxweynuhu markuu ogaaday raggii hore inay soo baxayaan reer puntland waan u mahadnaqaynaa iyagaa soo horreeyo diyaaradda soo saaroo noo keenay annana waan geynin madaxweynuhu markuu hubsaday raggiisaasi inuu soo baxayo wuu shaqeeyey maantana wuu shaqaynayaa inay raggaasi soo baxaan kuwanina xornimo helaan madaxweynuhu wuxuu ka shaqaynayaa mandiqadii colaaddu ka dhacday inay nabadgelya ka dhacdo anigoo kale raggii hadallada u taagtaagnaa baan ahaa ee arrinta ceerigaabo iyo markay dhaceen iyo boqdharkayn iyo madaxweynuhu waa ii yeedhay wixii halkaa nabad baan ka rabaa jooji wax dadka kala fogeynaya in dadka laysu soo dhaweeyaan nabad baan rabaa maxaabiistu inay baxdaan rabaa ceerigaabo in nabad la isku soo mabda'aasaan wataa igula shaqay wili aan kuu duceeyey waan aqbalnay waan kula shaqaynaynaa waxa weeyaan maanta waxaan doonaya in idiin sheego dadkii dadku ka xidhnaa waa la kiciyey war beena baana loo sheegay war khaldan baana loo sheegay anigu ilaa saaka intii dhacdadaasi dhacday qoysaskii wax ka xidhnaayeen baan la xidhiidhiyey dadka lagu cabeeyey aniga ka mid a ninka aarsade qaaday faysal oo xidhan ya dadkii igu ixtiraamka badnaa ee dadkaas faysal quri ma xidhnay dadkoodii xidhnaa nin ka shaqaynaya dadkanna inay iska baxaanoo aanay cidi soo daba marin oo dadkoodii aanay helin dad ka shaqaynaya waxaan leeyahay war reer khaatumo waxa ka xidhan 120 nin baa halkan ugu xidhan ninka reer khaatume ka mudaharaada inaanay dadkani soo bixinna waa nin doonaya inay dadkani la halgamayo walaaloodii halkan ku xidhnaa ee madaxda leh ee taliyayaasha ciidanka leh ee xildhibaanada leh inaan loo naxariisan ninka maanta leh burco ka mudaharaada oo xukuumaddu faraha kala baxdo oo yaan la soo dirin laga shaqaynna waa dad aan dadka maslaxadooda ka shaqayn annagoo madax dhaqameedkii dadkaas ah waanu ka xunahay xukuumaddana waanu ka raali gelinaa dadkayaga inay kaceen oo rabshad sameeyeen waanu ka raali gelinaa waanu la hadalay dadkayagii waanu isfahanay wax dambena kama rajo qabno inay dhacaan laakiin waxaa jirta madaxweynaha iyo xukuumadda waanu kala hadal ilmo faysal cabdi bootaan caawa galabta waa la xidhay daqiiqadii intaana joogin baanu ilaa madaxweyne ilaa janaka bilayska ilaa ka milatariga oo aan ugu mahadnaqayo weliba labada taliye nimcaan iyo cabdidheere inaanu markaanu imikadaa sii daayay ay sii daayeen dad waalidkood iyo dadkoodii ilmo faysal cabdi bootaan maaha dad badan baa burca jooga oo u badan yihiin dadka ka xidhan hargeysay joogaan waxaan u wada damqanaynaa dadkaa xidhan waxaan leeyahay madaxweynuhu arraa'id laa yaktub calaa ahli wasiiradii hadlayay iyo madaxdii hadlaysay waxay haddeen lama qaadayo waar dadka markaanu hubinno xukuumadduna hubiso inay soo baxayaan dadkaas waa la isdhaafinayaa dadkaa haddii laydin la qaadi maayana waa la gudbinayaa waanu hubinaynaa inay labada maxaabiisood isdhaafayaan madaxweynuhu tii hore wasiiradiisa ka muqdisho arrimaha qaarkood ee sensitiveka marka laga shaqaynayo in la qariyo xogta sax weeye ilaa hadda anigu ninka ugu xoogaasan baan ahay madaxweynaha ugu dhowaa ee kala shaqaynayey ee la hadlayay cid walba waxa weeyaan waddadii u fiicnayd bay xukuumaddu waddaa ninka maanta le madaxweynuhu muxuu wax u qabanayaa ya waxaan leeyahay dadkan warka xun geliyey ee fidmada geliyey ee ka dhigay madaxweynuhu ninaan dadkiisa u damqanayn waxaan leeyahay ilaahay baa idinka abaalmarin doona xumaantaa ka shaqayseen dadkayagu waxay geysteen ficiladay geysteen xukuumadda iyo shacbiga somalilan iyo cid kastay dareen gelisay waa ka raali gelinayna waxaan kaloo doonaya inaan idiin sheego war ninkii xumaan ka shaqaynayuu dadkaygii waa na aqbalay waa la hadal dowladdu inay sii daysana waa ka shaqayna waxaan kaloo leenahay maamulka gobolku sida uu uga shaqeeyey ee loo laayay dadka rasaasta noo loola dhacay ee loogu dhintay ee loogu dhaawacmay xukuumadda waanu kala xisaabtamaynaa waanuna u sheegnay ninka shacabka laayayna ma xukumi doono ma fadhihi doono waxaan u mahad celinaa ciidanka qaranka oo markay shacbiga la hadleen ay shacbigu dhegaysteen oo maqleen waxa weeyaan xukuumadda waxaan leenahay waan kala xisaabtamaynaa dadkaygii shacabka ahaa ee wax la yeelay waxaanse idiin sheegaynaa shacabka madaxdii bayniin baanu nahay maanta iyo maalintii dagaalku dhacay iyo maantadaana waanu ka shaqaynayn
ehelada dadka xidhan saraakiil badan baa xidhan ama habar jecel ahaato ama Somaliland kale ahaato saraakiil badan baa xidhan cid walba ehelkeeda aanu isku dhownahay ka wada shaqeynay aan isku xidhana uga amar qaadan mayno cidna inaanu ka shaqeyno xaalka xukuumaduna waxaan leeyahay kuwa xukuumadda yidhi la taaban maayo arrinkaa la qaban maayo war waa laga shaqeynayaa maxaabiista kuwaasina inay soo baxaan kuwa la soo baxa madaxweynaha iyo xukuumadduna iyadaa dadkan loo doortay aroorta hadday arkaan inay hawshaas sax tahay waanu uga dambaynaynaa wayna ku shaqaynaysaa waxaanuna qabnaa xukuumaddani wixii hore xukuumaddii hore ka gaabisay iyo dadkaa inay u dhaqdhaqaaqdo inay waddo fiicanayso waana ku hambalyeynayna wixii halkaa ka dhacayna maamulka gobolka ee farsamo xumaa waa lagula xisaabtamaya mararka qaarkood ee xaaladuhu taagan yihiin dambiilaha lama qabto haddii fidmo ka badani ka dhalanayso waxay noqonaysaa in la qaban laakiin waxaan leenahay dadkii xafiisyada dawladda jebiyey hantida dadka dhacay tuugtahay ee ku dhex dhuuntay dad iska cadhaysanoo caadifadii iyo warkii la geliyey ay cadhsantii ka hoos faa'iidaystay waktiga ay noqotay in wax laga qabtaa laga qaban doono xukuumadduna taa way noo ballan qaada cidda maamulka ah ee dadka shacabka ah rasaasta nool la dhacday dadkayagii weeye kama hadhayno inay noo sii joogaanoo dadkayaga berrina laayaanna ma yeelayno xukuumadda waa kala xisaabtamayna dadkana waxaan leeyahay qurba joog ha haato qolqol joog ha haato war xukuumadda halka ay wax marinayso anigu ninka ugu xoogaalsan baanahay haddii dadka aad nagu kicisaan shacabka odayaashii xidhnaa carruurtoodii iyo haweenkoodii ilaa maanta ninkay la dagaalamayeen ku cadho burburayeen anuu ahaa raalli baan ka ahay waxaan wanaag ahayna kama shaqayn kamana shaqayn doono haddii wax kastaa nagu gaadhayaanna waan ka shaqaynaynaa dadkaasi labada qaybood kuwan iyo kuwaba waan damqanayna halkaa ku xidhanba waxaan leeyahay hala ixtiraamo xukuumadda shaqaday haysana ha loo daayo wanaagay ka shaqaynaysa ha loo daayo hadday berri iswareejinaysana iyadaa xor ah markay hubsato markay go-aan gaadho nin kale idinma odhanayno haddaan idiin sheegaynaa waa la taataabanayaa kuwana waa la sii daynaya kuwana waa la sii daynaya taasay xukuumaddu ka shaqaynaysa annaana ka shaqaynayna waxaana leeyahay war dadkii shacabkaha waanu la hadalay cadhada shacabka waxaa qayb ka ah maamulkii halkaa rasaasta dadka la dhacay in dawladdu tallaabo ka qaado xaaladday dejinaysaa waxay noo ballan qaadeen dadka iyagu inay dawladda uga dambeeyaan ku ixtiraamaan shaqaday wadday ka shaqaynayso waxaanu ognahay dawladda quri inaanay ku jirin international community-go dhan baa ku jira jamciyadda qurumaha ka dhexaysaa ka shaqaynaysa arrinka maamulada deriska ah oo dhan baa ka shaqaynaya waxaa ka shaqaynaya guurtidii halkan inoo ku timi beelaha absame ee garaad kulmiye hogaaminayey waxyaalaha ay u socotay guddidii qaranka madaxweynuhu igmaday waxay mandaqada tan inaynu nabadi ka dhacdo in la nabadeeyo meelihii la isku dilay oo dhan xukuumaddu way ku saxan tahay way ka shaqaynaysaa waana looga dambaynaya waxaan ku soo gebagabeynayaa hadalkayga waxaan leeyahay dadka shacabkaa waxaanu ballan qaadaynaa inaanay fidmo dambe ku dhicin xukuumaddana waxaan leenahay ha ku niyad jabina madaxweynaha iyo xukuumaddiisana waan ka raalli gelinaynaa dhacdadii halkaa ka dhacday shacbigayga la isticmaalay waxaan kaloo ognahay in hargeysa laga diray warka waxaan ognahay fidmada halkan in laga kiciyey maanta cidna ku hadlimi doon macal cunay soo bixi doone dawladduna indha qoraayay leedahay annana dadkayagaa dadka ka shaqeeyey inay dhintaan ka shaqeeyey waanuna daba joognaa waana kala xisaabtami doonaa aad iyo aad baa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wixii su-aalaad weydiinaysaana waa arrintaa waxaan dadkayaga u sheegaynaa been idiin sheegi mayno war xukuumaddu berrito hadday ku qanacdo oo maxaabiistaa in la isdhaafiyo ay berri noqoto wasiirna been idiinma sheegi karo lama taabanayo lama odhan annana idiin sheegi mayno waan kala shaqaynaynaa inay isdhaafiso xukuumadda aan uga dambayno shaqadeedana aan uga dambayno shaqada wanaagsan madaxweynuhu qabtay ee nabadayntaana aan ku taageero tii ciidamadana waanu ku taageeray uu ku qarameeyey tii nabadaynta cirif weyn buu nagala shaqeeyo daacad ka ahaa xukuumaddu si fiican bay u shaqaynaysaa waxaan leeyahay xukuumaddu hadday khalad gashana madaxweynaha iyo golahiisa iyo golayaashiisa waxaanu doonaynaa khaladkii halkaa ka dhacay maanta dadka shacabka lagu laayay in lagula xisaabtamo ciddii ka dambeysay xaajadana xukuumadda ha loo daayo maxaabiista iyo say uga fikerayso iyo dalka siyaasaddiisa say u jahaynayso aadna waanu ugu qanacsana wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakatu